waxaan oran karaa runtii Cabdimaalig wuxuu ahaa shakhsi horumar ku suntan oo gobolka Togdheer iyo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed ay tagto magac iyo maamuusba ku leh Cabdimaalig hadii uu dambi galay waxaan leenahay hawlihiisa samafalka ee uu sameyn jiray dadka tabaalaysan hal lagu cafiyo lagu soo daayo Cabdimaalig oo la wada garanayo kaalintu kaga jiray ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba Cabdimaaligna muu dafrin jiritaanka Soomaaliland meelna kama oran mana hayno hadal uu yiri mid kale aan ku darayaa waxaan ku darayaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu habeenkii la xiray Cabdimaalig oo hadlay waxa uu warbaahinta ka yiri hadallo curfiya oo runtii Cabdimaalig lidi ku ahaa xaq wuxuu lahaa inuu dhexdhexaadiyo saxafiyiinta Soomaaliland muu hayn inuu dhinaca garabka saaro oo yiraahdo la soo xiro wixii isaga iyo wixii kala tagay waxmar midda kuma saxnayn Solja hoggaankeedu waxa uu leenahay ilaahay mid dhaama Solja ugu bedelo Xuuto inkastoo waqtigiisiiba uu gabagabay yahay